idin salaamaya. Maanta waxaan idin wadaa sheeko run ahaantii dhacda laakiin aad ii damqisay oo aniga ka xumaado waxyaalaha noocaas oo kale in lagu dhaqmo. Sheekadan waxa weeye wiil yar iyo hooyadiis ayaa la kala fogeeyay kabacdina mid walba loogu sheekeeyay cunugaaga wuu dhintay hooyadii la yiri. wiilkii markuu soo yar roonaaday hooyadii aawi oo garoodan la dhahay hooyada waa dhimatay. aad iyo aad aan uga xumahay sheekadaas, bal sheekadaas yaana in ka hor dhicin anoo aad uga xun oo aad u dhibsanaya oo haddana aanan jeclayn in sheekadaas la sameeyo waalid iyo ilmihiisa la kala qariyo. sheekada waa idinla wadaagayaa sheekadaas aad iyo aad aniga kulli ii taabatay idinkana xaggiina oo idin taaba doontaa. sheekadan ma rabin inaan soo qaato laakiin calooshayda run ahaantii waa sheeko aad u saameysay. sheekadu waa tan. dunidan dusheeda maxaa ka farxad badan in ilmo 5 sano jir geeridiisa lagugu sheegay oo aad ka samartay 16 sano jir aad ku hesho. telefoon baa la ii soo diray halow mi maqlaysaa wiilkaagi Maxamed Amiin miya ahaa wiilkaagi waa kan waan naxay marna waan farxay marna waan ooyay marna waan farxay waan cararay xijaabkayga macalma gashan waan cararay. Maxamed Amiin Mahad Ibraahim waa curadka hooyo Farxiya Ahmed Saciid Faras oo aabihii kala tageen isagoo 3 sano jir ah waxaana xilligaas qaatay aabihii. Farxiyo waxa ay noo sheegtay in 2 sano kadib lagu wargeliyay geerida wiilkeeda oo ay la wadaageen ehelka Maxamed Amiin Mahad Ibraahim wiilkeeda. waxay sheegtay inay aamintay kana samartay wiilkeeda. mar waan aaminay waxaa la dhahay ilmahaagu wuu dhintay haddana ilmahaagi waxaa la dhahay shilu gaari baa la gadoomay wuu dhintay ilmihii bay iga tacsiyeeyeen saqiir u ahaa ilaahay waxay dhaheen jannatul firdawsa ha kugu tuso. ani waan ka samri waayahan dhahay waan fikiri jiray ilaa waqtiga waan ka samir oo niyo jirtana ma ahayn waa aamusnaa. bani aadamka alle waa uu karaameeyay muddo kadib waxa ay ku riyootay Farxiyo in wiilkeeda uu nool yahay waana aamintay sida ay sheegtay ilaa ay ku wada kulmaan gurigeeda oo ku yaala magaalada Xudur ee gobolka Bakool oo aan maanta ku booqanay. waa tan Farxiyo ka sheekeynaysa marxaladaha kala duwan ee ay u martay xogta wiilkeeda. ilaahay yaa mahadle ilmo iga maqanaa waa hadda ii ag fadhiyo wiilkayga Maxamed Amiin Mahad Ibraahim baa la dhahaa. wiilkayga muddo wuxuu iga maqnaa magaalo Xudur buu ku dhashay mundulkii aan ku dhalay waa suuq yare Xudur waay guriga Cabdi Faarax Cabdi qofkii garanayo magaalada Xudur. marka wiilkayga wuxuu iga maqnaa muddo 16 sano 16 sano iga maqnaa muddadaas 3 sano asagoo jira la iga kaxeeyay reer aabihiisa iga kaxeysteen waan kala tagnay. ilmihii aabba ay dhahay hal sano haysanayna ay dhaheen aabbo anaga 3 sano haysanay ilmihii markaan siiyay waa la iga kaxeeyay. ilmihii waxaa la geeyay Itoobiyada. ilmihii waxaa lagu sameeyay markuu in yar aqli u yeeshay ilmihii hooyadayaan rabaa hooyada way dhimatay mar hore la xawaalay wuu aamusay. anina telefoon baan u diraa leene wiilku wuu dhintay dhahay. kadib ilmihii inuu nool yahay ogaaday dad baan weydiiyay dad baan fariino u diray dharan aan u dhiibay marka hadda ma ahayn 5 sano jiro waaga. kadib haddana ilmihii waxaan ogaanay intuu nool yahay. ilmihii soo kaxday reerkii aan rabaa markuu dhaho dadka laga qarin waxaa la geeyay meel baadiyaha xoolaha la raaciyay. wuu ka soo tagay magaaladu imaan waa la xiri bilooyin hadduu joogo magaalo kale loo dhigay. ilmihii saasa lagu hayay aan dhalay Maxamed Amiin Mahad Ibraahim weeyaan. ani kama qarin lahayn aabihii hadduu weydiiyo ilmihii wuu nool yahay dhihi lahaa asagu iga qari. ilmahaygina hadda xalaal buu ahaa wuu imaaday waan haysanaa. marka ilmahayga saa ahaa haddana waxaan ogaaday ilmihii in la iga qarinayo
kadib gabdhahan arkay oo ka imaaday dhankaas ilmaha uu nool yahay guri hebel jooga saas weeyaan ogow kadib anigu aan ku rafaaday dad aan ku qool xiraa jiray kuwa lacaga aan siiyay macal way jiraan aan dhahay ilmaha iga soo kaxeey aan u rafaaday inta bilood laga joogo intaas sanad oo ehel markaan soo kaxeen aan dhahno waa la qabsanaysan ku soo kaxeynaa bas lacagta iska qaadanayaan gaarigii hadana lacag soo dir waan ku wareeray ilmahayga aad iyo aad aan ugu rafaaday hadana ilmihii la jooga marka wiilkayga alxamdulillah waa kaasa goormaad lagu xaqiijiyay ilmahaga inuu nool yahay waxa la ii xaqiijiyay 3 sano asagoo jira uu iga fakana reerka haystay 16 sano jira waxa la ii sheegay inuu nool yahay daraad anoo gurigayga joogo oo aan leeyahay ilmahaygu uu nool yahay oo ma dhiman hooyadii reerka dhan iyo dadkeenana dhimasho aan u sheegay ilaa habriirihiisa oo hadda daawanahayo kuwa dibidaha jiraankay way og yihiin kuwa oo garow wadamaha jiro aan u sheegay wiilkayga dhintay asaga garow macal waan geeyay asagoo yar garow waan geeyay wiilkii asagoo saas ay tahay reerka aan u sheegay waa dara telefoon baa la ii soo diray halow mi maqlaysaa wiilkaagi maxamed amiin miya ahaa wiilkaaga waa kan waan naxay marna waan farxaba marna waan ooyay marna waan farxay waan cararay xijaabkayga macal ma gashan waan cararay kadib ilmo yara iga soo daba qaaday xijaabkii markaas aan gashtay go' waan ku cararay markaan wadada bajaadaan u yeeray way iga hor imaatay sidii aan ku raadiyay lacaga markii deen aan qaadnay gaariyaa lagu soo saaray ilmihii saas lagu soo gudbiyay reerka saas uu ku imaaday farxadayda maxamed cabdiraxmaan ma soo koobi karaba farxadda qaarkood waa loo dhintaa Soomaha farxadayda aad iyo aad ay u weyn tahay dadka Soomaaliyeed bulshada dadka daawanaya kulligood waxaan ogahay ilmo oo ka maqnaa 16 sano oo haddana ku garab fadhiyo adig kula oo garabkaada farxad weyn bay tahay lama filaan bay ugu noqotay farxad weyn bay tahay hadda waxa ay daran ilmaheedii oo hadda iga maqnaa oo anna hadda uu dhintay hooyo way dhimatay laho anoo nool asagana nool oo magaalo kale aan kala joogno oo reer la'aan ku dhacday wuxuu dhahay asaga hooyada way dhimatay hooyada ma naqaan baa leeyahay marna haddaan hadlo waa waliisii diri marka taas awgeed hooyo intaad nooshahay waa mooduu dhahay markii kadibna ilmihii hooyo ma noole ehelki soo baro kubi garow joogo tag hooyo soo baro habriira soo baraan soo dhahay kadib haddaan selnay waan saleelnay alxamdulillah uu dhahay saasaan ugu maxdeelin farxaday lama soo koobi karaba dadka muuqaalka yarkaayo waxaan ugu baaqayaa ilmihiina haday yar yihiin hooyo kasta isku mid ma aha hooyaha qaarkood waxaan baaq u dirayaa ilmaha markaad kaxaysaan reerkooda lagama qariyo ilaahay haddaan qarin lama qariyo ilmaha reeraha waa isbaraa ilmahana lama dadka ilmaha weysan ilaa Cabdicasiir Riyali meel kasta taleefamaha qadkaan ka arkaa waxaan ugu dirayaa ilaa Cabdicasiir Riyali ilmaha u baafinayo asaga macluumar aan waco taleefamaha u dircod u dhaafay way jirtaa aan la hadlay marka waxaan baaq u dirayaa dadka dhan ilmaha ka maqan ilaahay u saqiro ilaahay u soo aruuriyo ilaahay ha iskuintuso ilmaha dhan reerahooda oo isla Allah istuso waxaan baaq u dirayaa dadweynaha Soomaaliyeed dadka dibadaha jiraan iyo maamooyinka dibadaha jiraan oo ilmaha qurbaha la joogaan kulligood ilmahooda ilaahay ha u xafido aan leeyahay halka waxaan ka salaamahay dadka oo ay garanayo haddii arki doono Cabdi Faarax Cabdi Xabsaba Faarax luul Faarax ilaahu beega qaba yareey Faarax shiil cani Zola walaalahay waay labada waa walaalahay Zola iyo cani waa garabkayga markasta wiilkaan cani iyo Zola way arkeen anoo yar wiilkeen arooskiisii sabrahooda macal wuu haystaa walaalahay waa baaqan u dirayaa maxamed amiin mahad ibraahim waxa uu inoo sheegay in marka uu weynaaday aabihii weydiiyay hooyadiis hase yeeshee aabihii u sheegay in hooyadiis mar hore geeriyootay marka uu muddo reerka ku dhex jiray oo su'aashaasi uu marar badan weydiinayna reerkiisa aad u dhibsadeen maxamed amiin waxa uu halka ka qaatay in hooyadiis nooshahay balse laga qarinayo waxaana go'aansaday in xaalad kasta oo u maro in hooyadiis uu raadiyo maxamed amiin waxa inta inoo raacay in reerkiisa ay deganayeen magaalada Goday ee dawlad deegaanka Soomaalida hase ahaatee weligiis goob waxbarasho la geynin diin iyo maadi midna aan waxba ka aqoonin balse farxadiisa ugu weyn maanta ay tahay in hooyadiis uu la kulmo waxaana uu sheegay in hooyadiis uu garab siinayo una diyaarsan yahay in mustaqbal yeesho
oo uu waxbarto magacaygu waa maxamed amiin mahad ibraahim hooyadana farxiyo faras maanta farxadeeda ma soo koobi kara maxaad ku faraxsan tahay waxaan ku faraxsanahay maanta anoo hooyada helo isma lahayn hooyada way nooshahay hooyada maxaa lagugu sheegay hooyada way dhimataa lagu yiri yaa saas ku dhahay aabba saas ku sheegay haye goor ma haytay xilligaa saas ku dhahay 6 sano kadib 6 sano ka hor yaa lagu dhahay hooyada way dhimatay adi maxaad dareentay mar saas lagu dhahay ma aamintay mar waan aaminay marna ma yar aaminay dib baa laga sheegay adiga kuwa reecada bardaay sheegay maxay ku dhahay hooyada way nooshahay xuduray joogtaa beelisa haye bas markaas farxad baan yar dareemay haye markaan ku dhaweeyay adaa hooyada yaqaan meesha joogtay haye hooyada way dhimatay weerin bay ugu jiray bas mar baan inaan soo baxsado mar bundaa laga qabtay deegaanka ku noolayd adig goday Ethiopia haye mar baan inaan soo baxsado baabuur baan soo raacay haye bundada askarta nimanka askarta u dhigay sawiraanta u dhigay bundada bas askarta ay soo qaatay hadana sumbal cabay dadana weedii gooda sumbal cabay summa cabtay ma sumbal cabay haye dhakhtarka leeyahay maxaa ku kala feesoo cabtay ceel bay u kalifay haye bas adi markaa hadana wuu xiray meel xabsi u geeyay marka damaanaha hooyada ku geembiyo xagga balweyne soo aaday aabahay balweyne maadaama ay sicil bardo si maraysaa si qaadban ku yiri haye bas markaan baabuurka soo gataan soo noqon buu yiri uu soo noqday hadana wuu sii qaadibay marka saas aan ku soo tagay markii jaa ku soo wareeday marka ana soo dhuntay guday ma ka soo dhumatay haye marka inta imaad guday ma ka soo dhumatay ceel bardo haye marka intaas hooyada mar soo xiriirtay mise lama saxarin ma haye meelaha ku dhimid baa la daawada wadaadii kala sa qamiis ay bardo markaan mootooyin ma weydiiyay mootooyin maxaa la yiri hooyada way nooshahay waan qaadan waayay marka haye waa lagu xaqiijiyay haye weliga dugsi iskuul meel ma lagu geeyay may dugsi ma dhigan oo dugsiga ma dhigan haye iskool ma dhigan haye maxaad qabanaysaa mar magaalada joogi jiray baadiya la diray marna adiga xag arsabay diray marna markaan aan hooyada dhaaway wala magaalada laga skixin jiray baadiya la diri jiray saas baadiya waxa ku jirtay ariga raax jiray oo aabba leeyahay haye hada ku wada xudur markaad xudur wax weyn ma la kulmay farxadeed haye hooyadaadii ilmaha la kulmay waa gartay marka dadkii oo eheladaadii ahaa oo aaminsanaa in adiga dhimantay sida hooyada oo kale loo sheegay maanta ma fariin aad u diraysaa fariin uga diraya in aan hooyada sahlay aan u dirayaa